Yeah, yeah, yeah. Sarayga Studio. madaxweynihii cabdikariim iyo madaxweynihii qoorqo labadaasuba dagaalkan labadaa reer waa dhex taalay waxna waa ka qaban waayeen maanta madaxweynihii dadka ku dhasho reer cadaadooda baa loo caleen saaray baanu isiri maantay waxay ku soo noqonayaan noloshoodii hore way ku wada degi jireen oo walaalaha ku ahaayeen oo ku wada noolaayeen baan u tooghaynay waxaa dhacday kadar oo dibi dalbaa ka dhacday meeshaan dagaalku ka dhacay ma aha furin soomaaliya waa furinta etoobiya iyo soomaaliya markii ay isu imaan jireen meeshii ay ku wada had jireen oo xuduudda ahayd oo qolo walbaba baalkan hawada ka shaqeeyaa la istaagi jiray waa meeshaas dadka ay ugu tageen waa dad etoobiyana aniga hadda waxaan ka hadlahayaa waa caabudwa waa dad yacni familkayagii ah dadka hadda halkaa degan oo etoobiya degan halkaasaa dagaalkaasu ka dhacay saakay waa bilowday galabtana waa bilowday labadaba isku bar keliya oo nimankaas xagga etoobiya ku jiraan ay fadhiyaan baa dagaalkaasu ku soo laabanahayay haatanna waa laysu muuqdaa ma anaan malaynahaynin gobolka hadda la yegleelahayo oo dawladdii oo dhan gacan saartay in oo ciidamadii joogaan shalay hadid ahaa dhintay waxaan islahayn xalay ciidankaasaa dhexdooda istaagahaya oo qoladii dulum wata dib u celinhaya baan islahayn wax u soo dhaqaaqay maanaan arag madaxweynihii xaaf xalay wuxuu ku shiray oo joogay gallisoor waa ka baxay cadaadaha labadood isugu tageen laba mas-uul meelay isugu tagtay oo ciidamadii joogaan saakay intaas oo qof oo soomaaliya oo reer guduudu inay ilaa macno la-aan isugu leedaan waa wax aan adduunkaba aan la malaynahayn de waxa weeye arrintaasaa taagan waxaan ka baqaynaa hala joojiyo ma ku joogahayaan awood dawladeed bay ku joogi karaan labada dawladood ka way iswaraysan kartaa oo midda etoobiya iyo middan soomaaliya qolo walbaba qolada kale ha canaanataa la oran karaa ama hala hadasho wax la hadlaya iyo wax isugu tagaya iyo wax dhexdoodii jooga midna lama arko waxaana laysu samaystay hub mulkiyaada oo hubkii dawladuhu awal ku dagaali jireena da waxaan leenahay dagaalka hala joojiya waa ku baaqaynaa intaa oo sano baa labadaa reer oo ciidda dhulku ka dhaxeeya iyo ehelnimadu intaas oo nin baa uga dhimatay khasaaro maanu ihin nabadoon midkii la dilo cuni jirtay nabadoon cali weli nabadoone khasaaraha iyo falastiin halow dhexdooda ka dhacahaya nabadoone yaan la midnahay nabadoon maanaan malaynahay halow nabadoon maanta soo duulaan oo beercawleed ka soo kacaan oo adaada ka soo kacaan intaa oo kilomitir oo xuduudda etoobiya ay cod ugu tagayaan waxaan malaynahay ma aha waana dhacday nabadoon leenahay dagaalka hala joojiyo dawladdu dadka ha kala dhex marto intaasaan leenahay waa gartay nabadoon cali weli khasaaraha intee buu la egyahay maanta aada maqashay khasaaraha halkaan 15 nin baa dhaawac u yaala 9 nin oo lafta dhibatay 7 galkii hore dhibatay intaasaa gaartay dadkaan hadda etoobiya xaggeeda degan marka dhimashada guud waa imisa geerida ya geeridu waa imisa markaas
geeridu waa laba meel 7 weeye marka muxuu dagaalku ka bilowday baa la leeyahay wuxuu ka bilowday niman u jeeda oo leh dowladda Itoobiya dacdeerta ay degtay iyo meeshii dhulka ayay fihid oo halkaas niman u jeedkoodu yahay ilaa guddaan Soomaaliya nimankaasiyayna doorashada maanta ayna ka soo qayb gelin dhulka ka furta ujeedkoodu yahay weeye waayo cidaas ujeedka wadata waa raacadadood haddii dadkii Soomaaliya Galsoor wariyaha ku yaala oo labada isteeshinka xagga uga soo jeeda iyo kuwa xagga uga soo jeeda waa anigaan gurigii waana la haystaa barkada ayagii toosarbaan baa la haystaa mircaweed baa la haystaa kabawar baa la haystaa deeqaa la haystaa eelmudaan baa la haystaa intaas waa intii dulaniyadu ku taalay waana laga saaray oo shacabka waa laga saaray xuduudda Itoobiya ku jiraan ilaa goorma ilaa 7 sano ilaa dagaalkii Maxamed Siyaad Barre wadanka dagaalkii aaniga ahaa ka dhacay sidii uga saartay reerka meeshaas magaalada caabud waaqlaan waxaan ka soo galnaa halkaa kabshada marka dhowr jeer oo hore maslaxad ay jirtay niyana waxa soo dhanba la xalin waa la isu yimaadaa haddana waa la isku kacaa waa nin meeshaan hadda lagu dagaalayo iyo hobyo 250 kilomitir ama 300 kilomitir bay joogtaa annagana hadda meeshaan nimanka ka lagu adeegayo xuduudan Itoobiya meel 20 kilomitir oo galaadi ka sokeeya intaas ku nool yihiin xagga Majeerteen baa loo galaya xaggan Ogaadeen baa loo galaya intaas dhulkoodiina waxa ahaan jiray cadaado wixii ka soo rogan meesha la Galsoor ari bandiiraley intaasay la degi jiray la wada degi jiray intiina waa laga saaray dawladuna waa ogtahay si daragtii loo yahay arintaas ee waa laga qabanahay haddii laga qaban waayana haddii kuwaan dawladda sarka ku hayaan oo dawladda sarka ku hayaan kula jiraan ummad badan Puntland waxay la leeyihiin dagaal joogsanayo galmudug dawlad ku dhisaysan ma jirayso ma dhismayso dawladda xaaf oo dhisaayo oo ma dhismayso reerkaas intuu xuduudda Soomaaliya laga saaray halkaa ka soo jeeda qofkoodii dawladda waa ku dhaqan inama Puntland waxay la leeyihiin Itoobiya waxay la leeyihiin waa gartay marka yaa kala dhex galay ugu dambeyntii waa sidii hadda goobtii lagu dagaalamay ma kala dhex gelin haddii la rabo galmudug inay istaagto ra'iisul wasaaraha markuu caabud waaqiyay ninkii la hadlay oo taariikhda u sheegay baan ahay mala dhismaysaan meesha la yidhaahdo galmudug inta nimankaas dalkoodii inta laga saaray ay dibadda Itoobiya ka jiraan in laga soo xareeyo xabadda laga joojiyo gurigooda looga kaco mooyaane dawladu xasan cali khayran sidaa ugu sheegay ma garatay ma dhacayso in ay noqoto degmo iyo gobol haddii aad walaalkaa weydo waan dawlad weyno dawlad kalaanu dhinaca ku hayno kaasi waxa uu ahaa nabadoon علي ولي حاجي الكدحب أو إسقوا عبود وقجوجا قد كا تلفون كيجو الرمبية إسلا دجال هذا سي أينو كجر رأي دينا عكلم مجال هذا عدادو وحن قد كا تلفون كعن كل حريري نبضون حسن دورة أو أمبل وحكوي دي قصارها دعائية صوت الدجال كوكو باللوده وعن كوشنا هاي مجال هذا عدادو مركال كاسن جوجا هذا وحن هذه وحنا هاي دجال كذا عيا بلعت aad baan uga xunnahay ma aha maantay dadkii la rabay in la isku urursho oo la isku keeno oo la walaaleeyo dadkii la doonayay maanta in xabad iyo dab laga dhaxshido wax adeer la qaadan kara maaha waxaan marka leenahay
xabadda hala joojiyo xabadda dadka xabadda wadaa xabadda ha joojiyeen labada dhanba waxaan kaloo leenahay dawladda federaalka ah midda galmudug inaan ha aragto hana ogaato waxa ay meel ku gaarayaan waa dadkan islaynaya hadduusan jirinna waa dadka buurta ku fuulayaan waa dadka ay sinsanayaan waa dadka ay rabaan inay hadhow ku xisaabtamaan marka haddii ay midba meeshiisa fadhiisto waxa iscunayaana dadkii loo noqon lahaa madaxda loo noqon lahaa ay yihiin wax lala yaabay weeye adeer waa gartay dagaalkan goorbuu dhacay muxuuse ka bilowday adeer dagaalka anigu war kama haye waxaan sheeko ku maqlay shalay inuu ka dhacay meesha dagaalku oo 2 nin ninna dhintay ninna dhaawacmay hadda ma oran karayo anigu maadaama aan nin oday ahay meeshan aanan joogin hebelaa wax bilaabay iyo hebelaa saasa codkaygu maaha maxay isku khilaafeen baa la yidhi 2 nin baa ninna dhintay ninna dhaawacmay shalay haye dee maantana dagaal baa dhacay marka aniga inta aan meesha ku harkay cadaada la keenay wax 4 dhimasho iyo 12 dhaawaca waa gartay hadda marka 4taas iyo ninkii shan la isku daro dhankan waa 5 dhanka kalena haddaanan been sheegayn oo aanan wax xalifayn wax wara weli kama hayo laakiin sida aad maqashay maya ayaga waxaan ka sheegaa waa dembi haye maadaama in oday aad tahay waxa aad sheegtaa inay yihiin waxaad ama aragtay ama xoogaal aad uu kaaga warramo marka dhaawacuna waa imisaa tidhi 13 baa taal dhaawacu 13 waa iyagoo 15 laba dhimatay marka ragga ay gerida ku keeneen 3 shalay maanta 4 maanta iyo ninka shalay wey haye geridu waa noocaas marka maxaa dagaalkan uu sababsaday baa lagu yiri nabadoon adeer marka roobka ay dagaan bay isku mirtaan markay roobka u doo bay isku mirtaan markaad weydiisana wuxuu ku leeyahay kaasina wuxuu leeyahay waa lay weeraray kana wuxuu leeyahay waa lay weeraray marka waxay isugu imaanayaan ama waa god unfo oo sabarada iyo loo sita magaciisa la qodayo ama waa berri la daadayo la degayo markay roob dagaan bay islaayaan jilaalka adeer isma laayaan iyo abaar maxaa hadda tallaabada la qaadayaa maxay tahay intaasi hadday dhaceen waxaan oran lahaa tallaabo la qaadaya ilaahayba waxaan oran lahaa xal nabadeed hala raadiyo waxaanan kaloo ku darayaa dawladdu ha isku daydo dadka la tirsanaayo oo madaxda loo yahay in la raadiyo xal loo raadiyo hakan odayaasha labada beelood in ayadoo dabada laga wado oo dawlad kushaadku dabada ka wadaan ilaa intaasay isku fiirsanayaane in dabada laga wado oo labada qolada odayaasha oo la isku raadsho in la baadigoobo meeshaas dhiigga laga baajiyo saasaan oran lahaa haddii laga yeeli oo hadda adigiyaaba oday maad odayaasha kale raadisid oo aad waxallisaan adeer waxaa raadin kara odayaasha waxaa raadin kara dawladdaa raadin kartee ha isku daydo laakiin oday dhaqan baa tahay dhaqanna dhaqan isma waayaane maxaa dawladda ugu xaglinaysaa maad dhiigga joojisaan idinkiyaaba dadkii ah oo deegaanadii ku dhowdhowe adeer wax iyaga laga qaadanayaan layga qaadanay oo maxay yihiin waxay yihiin ayaga taladaa laga qaadanayaa hadda waa nimanka u dawladaynayo dawladda waa hayaan wey aniga seadanayaan obay hadlaya waa gartay marka waxaan leeyahay iyagu ha isku dayeen say dadka isku raadin lahaayeen marka hadda xaalku waa sidee caawa aan kula hadlayo xal waa ku jiraayo khayladhaan baan wadnaa inaan ku guulaysan doona maogi laakiin waxaan waa garbaqaawanao meesha dawlad baa joogta dawladdii isku dayi mayso inay wax qabato hadday tahay federaal hadday galmudug tahay war fadhiga ka kacaanu leenahay hadday yeelayaan laakiin dagaalkii shalay buu bilowday maanta ayuu ku darsaday doorkii odayaasha ayaa meesha ka maqan ma leedahay kama maqna odayaashu waa diyaar caawin bay u baahan yihiin
keenisay u baahan yihiin gaadiiday u baahan yihiin waa u taagan yihiin aawe waa gartay hadda cid aad ismaqasheen ama aad kala war hesheen dhinacyada kale adiga kollayba odayaal inay wada hadleen odayaasha qaarkood waa laga yaabaa oo odayaashii hadda ay isku imaanayaan kuwaanu inay qaarkood la hadlo yarkada waa badan yihiin inay qaar la hadlaan waa dhici kartaade nabadoon xasan dhoore oo isagoo cadaado ku sugan qadka fadlan shargaray dad shargaraysaan birita 10 fi amad yeelisaan hadda shargaray hadii kale naga la taga wax anaga inoo sheegay hadii hadda shargaray kulligii shargaray hadda dilay fidmay shargaray kulligii all of you now kullu fa badanka arafkayga waan xiranayaan una dilay fid waxaan isbay soo dhooban ilaa waa been ilaa saaxiib baan kula nahay been war shargaray يلا شاكرين